saameynta ay ku yeelatay burburkii dawladda horaantii sagaashamaadkii bixinta iyo baahinta adeegyada dadweynaha waxay ahayd mid aad u weyn waxaa la oran karaa waxa istaagay gabi ahaanba adeegyadii dadweynaha sida ammaanka caafimaadka waxbarashada iyo qaybo kale oo muhiim ah muddo kooban kadib Soomaaliya waxaa ka hana qaaday dalado waxbarasho oo ay horseedeen ganacsato Soomaaliyeed iyo shakhsiyaad samafalayaal ah daladahaas waxay sababeen inay dib u furmaan iskuuladii waxbarashada madrasooyinkii jaamacado ilaa xanaanada carruurta iskuuladaas markii ay furmeen waxaa xigay in dhamaadkii sagaashamaadkii ay furmaan jaamacado ka hana qaaday dalka oo bixinayay waxbarashada heerka sare isla xilliyadaas waxaa soo badanayay shirkadaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay shirkadda Hormuud Telecom waxa ay kamid ahayd shirkadihii ugu horeeyay ee dalka markii ay ka hana qaadeen istiraatiijiyadooda ku dhisay inay taageeraan waxbarashada istiraatiijiyadii shirkadda waxay ku qotantay in la taageero hay'adaha waxbarashada ee dalka ka hana qaaday sida iskuulada iyo jaamacadaha si gaar ah haddaan si madal kale tusaale ahaan u soo qaato shirkadda Hormuud waxay ka mid tahay shirkadaha mar walba nala garab taagnay taageerada dhaqaale waxaan xasuusanaa generatorka ugu horeeyay ama motorka ugu horeeyay jaamacadda Simad shirkadda Hormuud oo deeqay maalintaas iyo intii maanta ka dhaxaysana mar walba taageero iyo garab istaag ay muujinayeen waxay si joogto ah u taabageliyaan programs ama barnaamijyo la xiriira cilmi baarista aan sameeyno ama shirarka la xiriira cilmi baarista aan qabano si joogto ah u taageeraan labadii sano u dambeysay waxay maalgelinayaan cilmi baarisyo jaamacaddu ay sameynayso wax badan oo kamid ah waxay la xiriireen shaqada ay shirkadu qabanayso iyo adeegga dadku hayso in la dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax bartaan dalkooda shirkadda Hormuud Telecom waxay sameysay jaamacad aan faa'iido doon ahayn si loo helo takhasusaadka qaar oo aan wadanka ka jirin shirkadda Hormuud kaalin weyn ayay ka qaadatay waxbarashada dhallaanka Soomaaliyeed ayadoo waliba ku dadaalaysa in tacliintaasi tayo ay u yeesho waxyaabaha kaalinta uga qaadatay waxa kamid ah inay aasaastay jaamacadda Hormuud 2010kii asaasitaankaas kadib ugama harin shirkadda Hormuud waxay sameysay deeqo waxbarasho oo mug leh ayay ardadii dhiganaysay ay siisay ardaydaasoo ilaa hadda tir ahaan gaaraysa in ka badan arday 500 ka badan ay inta ay jaamacadaasi jirtay ay siisay sidoo kale Hormuud Telecom waxay 2013kii furtay dugsiga ardayda baahiyaha gaarka qaba ee Al-Nuur iskuulkaas waxaa dhigta oo wax ka barta ardayda aragala oo ka kala yimaada dhammaan gobolada dalka qarashka ku baxa sida cuntada daaweynta iyo jiifka ardayda ku hooyata iyo waliba qarashaadka macallimiinta waxaa bixiya hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo kaliya dugsiga Bruj ee farsamada oo ah iskuul qaabilsan xirfadda ujeedada iskuulkan waa inuu soo saaro arday xirfadlayaal ah oo u kala baxa dhismaha alxanka birta farsamada korontada iyo dhameystirka guryaha 60% ardayda ka qalin jabisay dugsiga Bruj ee farsamada waxaa shaqaaleeyay shirkadda dhismaha ee Bruj 40% ka soo harayna waxaa qaatay shirkadaha dhismaha ee dalka dhanka dhiirigelinta dhalinyarada iyo inay wax ku bartaan dalkooda shirkadu waxay go'aansatay inay shaqaaleysiiso oo kaliya dhalinyaradii ka soo baxday jaamacadaha dalka dadka hadda maanta shirkadda Hormuud kala wada ee ka shaqeeya waxaan isboonaa kulli inay dad Soomaaliyeed yihiin oo inta ugu badan dalka gudihiisa ay ka soo baxeen wax ku barteen oo inta ugu badani qaastan shirkadda Hormuud Telecom shaqaalaheeda ay Hormuud dhexdeeda wax ku barteen oo halka ay wax ku barteen halka technical farsamada ay halka ku barteen shirkadda dadka iskala waa dad Soomaaliyeed fursadaas shaqo ay shirkadu bixisay waxay ku dhiirigelisay dhalinyaro badan inay wax bartaan saameyntii ay shaqaaleysiintaasi keentay waxay sababtay in shirkadaha kale iyo hay'adaha caalamiga ah ee dalka ka howlgala ay qaataan dhalinyarada dalka wax ku baratay oo iyaguna shaqaaleysiiyaan dhalinyaradii dalka wax ku bartay qaaleysiintaas soo bilaabatay horaantii 2000 waxay keentay in arday aad u fara badan oo kor u dhaafayso 100,000 oo arday ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha dalka waxay ahayd sanadkii 2019 markii ay shirkadda Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank ay iska kaashadeen iyaga oo u maraya hay'adda Hormuud Salaam Foundation inay hirgeliso barnaamij deeq waxbarasho ah oo ku dhisan tartan furan lagana bixiyo dhammaan qarashaadka waxbarashada isla markaana ay doortaan jaamacadda iyo kulliyadda ay doonayaan
طبعا ardayda wax ku barata Hormuud Telecom deeqda waxbarasho waxay isugu jiraan heer jaamacadeed heer dugsi hoose dhexe iyo heer farsamo. Horaantii 2020 markii uu dilaacay caabuqa COVID-19 oo ay arday badani ku qasbanaadeen inay fogaan arag wax ku bartaan, shirkadda Hormuud Telecom waxay ardayda Soomaaliyeed u sameysay qiimo dhimis internetka guryaha iyo kan mobiladaba si ay awood ugu helaan inay casharada internetka kala socdaan. Shirkadda Hormuud Telecom waxay sii wadi doontaa istiraatiijigii ay go'aansatay bilowgeedii ee ahaa in la taageero waxbarashada dalka isla markaana la siiyo dhalinyarada dalkeena waxbarasho tayo sare leh iyo fursado shaqo.